Kenya waxa ay Soomaaliya la wadaagtaa suuhdin dheer oo lagu qiyaaso inay gaarayso 116 kiiloomitir, laakiin maamulka Jubbaland ee xadka labada dal maamula waxa uu maamulaa in ka yar 200 kiiloomitir oo square ah. Axmed Madoobe waxa uu ka taliyaa magaalooyinka Kismaayo, Doobley iyo qayb ka mid ah Afmadow. Maamulka taagta daran ayaan gacanta ku hayn hal mid oo ka mid ah wadooyinka soo gala ama kuwa ka baxa magaalooyinkaasi. Cid kasta oo danaynaysa Jubbaland iska daayay magaalooyinka Al-Shabaab ay haystaan, xitaa kuma safri kartid wadooyinka soo gala magaalooyinka Kismaayo iyo Afmadow, sababtoo ah Al-Shabaab ay 2 ilaa 5 kiiloomitir u jira saddexdaasi magaalo oo ay maamulka Jubbaland ka arrimiyo. Magaalada Bu'aale ee gobolka Jubbada Dhexe ayaa ah caasimadda Jubbaland. Waxaa si buuxa u maamula Al-Shabaab. Waxay aruuriyaan canshuuraha, waxay ka fuliyaan baadda ay ugu yeeraan zakawaadka. Talisyada maleeshiyaadka, tababarayaashooda, dhaqaatiirtooda, khubarada qaraxyada ayaa dhammaan ka howlgala gobolka Jubbada Dhexe oo masaafo yar u jirta xadka Soomaaliya iyo Kenya, iyadoo ay jiraan cadaadisyo kaga imaanaya qaybaha kale ee Soomaaliya. Al-Shabaab oo ah hadda baxsan ayaa Jubbada Dhexe waxay u noqotay safe haven. Haddaba su'aasha mudan in la isweydiiyo ayaa ah, Kenya ma ku habboon tahay in ay daawato halista Al-Shabaab ee soo degtay xuduudkooda, mise waxa ugu weyn ilaalinta danta maamulka Axmed Madoobe ayagoo og Al-Shabaab inay ka fuliyaan weeraro bishii mar ama labo gudaha Kenya? Horaantii bishii November ayaa la sheegay in Al-Shabaab ay ka qaateen gaari ambalaas ah oo ku sugnaa degmada Mandera oo ay saarnaayeen 4 qof oo mid ka mid ah uu bukaan ahaa. 4tii qof ee gaariga saarneed ayaa la sii daayay, balse waxaa weli la laayahay ambalaasta. tani waa xaqiiqda maalinlaha ee ka jirta soodinta doldoloolada badan ee Kenya iyo Soomaaliya. Gudoomiyaha degmada Mandera Cali Robo oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in odayaasha dhaqanka iyo hay'adaha amniga gobolka Gedo oo ay xiriir wanaagsan kala dhaxayso maamulkiisa ay ka soo badbaadiyeen maalintaasi 4 qof ay Al-Shabaab doonayeen inay afduubtaan. run ahaantii waxaa la yaab ah, maxay tahay sababta Kenya naf iyo maal u weysay 12 sano ay joogtay Jubbaland? ma waxay ahayd in Al-Shabaab ay ka saaraan dariskooda Soomaaliya iyo xuduudka Kenya, mise inay joogaan Kismaayo oo ay waardiyeeyaan danaha siyaasiyiin dhowr ah? haddii ay tahay jawaabtu ilaalinta Axmed Madoobe, Kenya waxa ay qabatay shaqo wacan, balse haddii ujeedku uu ahaa la dagaalanka Al-Shabaab, taasi ma aysan dhicin. sababtoo ah haddii kooxda Al-Shabaab ay dharar card weerar ku qaadi karto gudaha Kenya, markaasi way iska caddahay in Kenya ay ku fashilantay la dagaalanka Al-Shabaab. Soomaalidu waxay horey u tiri media u dambeeyay kii la sii waday. Kenya iskaba dhaafay inay ka xoreyso Al-Shabaab magaalooyinka Jubbaland, teedii ay email u laadahay. Shalay 2 ka mid ah Al-Shabaab oo wata dareeska ciidanka Kenya ayaa gudaha u galay oo ku laayay dad shacab ah. Haddaba nintiisii keenay ayaa mid kale ku dara. Kenya maanta ayada ayaa shafka ku socota, toodii ay email u laayihiin iskaba dhaafay inay wax taraan Soomaaliya. bal aanu eegno weeraradii ugu weyn ee Al-Shabaab ka fuliyeen gudaha Kenya tan iyo markii ay gudaha u soo galeen Soomaaliya. bishii Oktoobar 2011 laba dhakhtar oo Isbaanish ah iyo laba kale ayaa Al-Shabaab ka afduubteen xerada qaxootiga ee Dadaab. 2013 Al-Shabaab ayaa weeraray xarunta ganacsiga Westgate ee magaalada Nairobi, halkaasoo ay ku dileen dad tiro badan, tiro kalena ay ku dhaawaceen. Abriil 2015 weerarkii jaamacadda Garissa, halkaasoo ay Al-Shabaab ku dileen 148 qof. 142 ka mid ah ay ahaayeen arday masaakiin ah oo aan waxba galabsan. Yaan iloobine Juun 2016 Al-Shabaab ayaa weerar culus ku qaaday xerada ciidanka Ceelcadde, halkaasoo ay ku xasuuqeen ciidanka Kenya ayagoo ka dilay 200 oo askari ah. bishii Janaayo ee sanadkii hore waxaa dhacay 2 weerar 24 saac gudahood. mid ka mid ah waxay ku dileen 17 ka mid ah ciidanka Kenya, halka kan labaadna ay ku dileen 7. haddaba xaqiiqda ayaa ah, Kenya ayada ayaa u baahan ciidamo nabad ilaalis ah, iskaba dhaafay inay wax ilaaliso. Kenya waxaa u furan 2 wado, ama in ay dib ugu laabtaan dalkooda ama in ay toos dagaalka u soo galaan. magacaygu waa Ismaaciil Kulmiye, aniga iyo bahda wargeyska maalinlaha Jubba waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiiso leh. nabaday.